daahiriyo haddaba waxaan maaragtay insha allah galabtay aan rabaa in yar inaan kasoo qaadano 10 daqiiqo isku baraarujino noloshan maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya geeri waad aragteen maalin walba ayaa la dhimanayaa qofku laxdada ay saacada daqiiqada ay naftu ka dhacdo magaciisa uu isbedelayaa waxaan ugu yeernaa maaragtay mayd waxaan ugu yeernaa marxuum maqli maysid mayd inta badan magaciisa loogu yeerayo ama magacyada kale aan isugu yeerno sidii maaragtay reerkiisii oo kale lagu magacaabo waxaad moodaa markii qofkii uu dhinto in laga wada raali yahay qof walba alla qofka Allah uu naxariisto buu leeyahay waa sax in la yiraahdo laakiin inta la nool yahay baa maaragtay kasi ajar badnaan lahayd haddaan isku naxariisan lahayn haddii qof inaga dhinto maanta waan ogahay kulligeed hadda maalin dhow ayna soo martay laba bari ka hor oo wada gurmanay waa aasnay lacag baa wada bixin saas aan qofka dhintay ugu gurmanay inaan intaan nool lahayn isugu gurmana ayaa maaragtay wanaagsan kanaba si ajar badnaan lahayd maxaa yeelay nabigu sallallahu alayhi wasallam in badan buu maaragtay wuxuu inoo dardaarmay in dadka muslimiinta iskaalmaystaan inay isu soo dhow yihiin ama calaamadaha lagu yaqaan baa waxay inay dad isku dhow isjecel yihiin mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraahumihim wa tacaadufihim kamathali ljasadi lwaaxid إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ونبي الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين تو هل جر أو كله جر كاسنا مركب حبين كم إذا أي حنون سطو جر كأنت كلا أوضن أي مركب حنون سطو النبي الله صلى الله عليه وسلم الحديث صور وريو سيسكون حريستان يا سيسكون تران وهذا قال ولا لا المركب النبي صلى الله عليه وسلم وحكدر دارمي ودردار إنوفر كم إذا إن المر البجيرة حسسنا نهاي ورسولك صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وكل يهي وذكره هادم اللذات وحد حسنات كشيء كيسان متك معان يلك جوية ومحوية هي الموت وجيرده ووح قف والبصامة رضوانه وقال يا مسلم ما يسلوا كلهم قفك إنه مارتي جيريان أيوه النبي صلى الله عليه وسلم وحليه الموت كأس والناس صارمه maydku waa koob ama dar laga cabayo qof walba uu ka cabayo riwaaya kale almawtu sabiilu wa naasu qaadiru mawtku waa jid dadku dhintay way wada goyn doonaan way gudbi doonaan Abdullah Mas'ud baa waxaa maaragtay ka sugan xadiis maaragtay aad u qiimo badan oo uu maaragtay saan oo kale muxaadaro uu ku jeediyay asagoo dad badan oo asxaabta la hadlaya hadalkiis marka waxaa ka mid ah wuxuu saxaabigaas leeyahay radiyallahu anhu oo kana mid ahaa maaragtay culimada saxaabada ugu waaweyn nabiguna uu yiri quraanka maaragtay asaga quraanku idin akhriyo xumeeyo oo nabigu sallallahu alayhi wasallam wakiilaha wama hadathakum ibnu mas'ud fasadiquhu waxa wixii quraan oo idin warraba ibnu mas'ud sidoo yahay u qaatay yiri riwaaya kale aqra'ukum ibnu abdi waxa idin ku qaarisan oo idin ku qoran akhris badan عبد الله بن مسعود الصحابي ناس مركز تذكر سؤال الله يقول يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياة ومن استحيا من الله فليحفظ البطن وما حوى ورأس وما حوى ولا يذكر الموت والبلاء الصحابي رضي الله عنه وحير يا أيها الناس ضضوا استحيوا من الله حق الحياة وحد إلهي كحشوتان حشوت حق أو دبر ومن استحيا من الله وفك إلهي كحشونية فليحفظ رأس مدحها حفظية وما وعى مدح وحا أكوبي مدح وحا أكوبي ولا قرن كنا ولا يا وحي شيء كذا مدح أكوبي أرقيكو مغلكي هذا الكي ما لها قدام بابوية مركي هذا الحنكو هذا شيء ودم حتى دوحن دقيستنا ودم حتى دوحن فيريسية عورية وحي لمدنا ودم صحابي أمرك هذا الكيس وحقات أوين بحنبارسية هاي وحيري فليحفظ رأسه وما وعى مدحا إيا وحا أوليي وكتشير هلا حفظيو دقاها هلا حفظيو حمانتي إن لقو دقيستو إنها إن لقو فيريو حمانتي هلا حفظيو عرب وكان هلا إلالي عرب وخطر ويه النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه أكثر خطايا بني آدم اللسان ابن آدم كدنبيالك ماشي غبضا أو أي ملائكة قرآن الله حساب دونه وأفكا وحي كجا هذلان وي أفكا وحي كجا هذلان وي خطر ويا عرب مر صحابي وحي المركة والبطن وما حوى على شيء وحي كوبتينا
maaragtay waxa weeye ha ilaaliyo qof oo calooshii waa inaadan xumaan qofkii una gelin waa inuuna wax xaaraan cunin oo uusan gelin markuu calooshii qofkii ladnaado uu dhargo waxbuu u baahan yahay macsiyo inuusan ku dhicin baa la rabaa calooshana intaasoo dhan baa soo hoosgelaysaa la yidhi calooshii waxa weeye saxaabiga ha xifdiyo waliyadkur ilmawta walbila ha xuso qofku geerida iyo inuu baabi'i doono balfiiri geerida iyo inuu baabi'i doono ayuu yidhi oo mar intuu dhinto oo qabri geli doono nabigu sala allahu calayhi wasalam marka uu geerida doonayay inuu inagu baraarujiyo wuxuu ina amray maaragtay qubuuraha inaan soo siyaarano xilliga hore muslimiintu ay maaragtay yaraayeen ama diinta ay soo gelayeen qubuuraha in la siyaarta xaaran bay ahayd kadib baa nebigu wuxuu leeyahay inii nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fa inaha tudakirukum alaakhira wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam waxaan idinka reebay qubuuraha inaad soo siyaarataan markii hore hadda ayaan maaragtay idin amrayaa ee soo siyaarta maxay tahay miraha ka dhalanaya fa inaha tudakirukum alaakhira aakhiraad xasuusanaysa markaad maanta tagtid oo tagtid qabrigeedii saaxiibada halkan hebel oo saaxiibka ayaa ku aasan halkan hebel oo kalaa ku aasan halkan muslim kalaa ku aasan te qofka muslin ah oo cabsi waxun ay qalbigiisa ku jiraan iimaan uu isbedelaya maalinka salaadu tukado iyo midii markuu makhaayada joogay ama fadhi kudirirka uu joogay ama shaqada uu joogay uu tukaday isku mid ma noqonayaan xaqiiqatan waxaa la jitaabiyey weeye adigoo xataa isku day inaad jitaabisid salaada tukatay markii hore ma ahan adoo cabsanaya tukanoo khushuucaya allah subxaanahu watacaala muuminiintana wuxuu ku tilmaamaa yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima razaqnaahum yunfiquun waxay ilaahay caabudaan yadcuuna rabbahum rabbigood bay caabudaan khawfan ayagoo cabsanaya wa tamacan iyo ayagoo ilaahay naxariis ka rajaynaya wa mima razaqnaahum yunfiquun wixii aan siinayna waxa weeyaan oo maalka ahana waxbay ka bixiyaan bali kulli maahan wa mima razaqnaahum bali qayb un weeyaan waxun geeridu walaalayaal marka waa wax qof walba soo maraya qof sheegi karaana una jirin allah subxaanahu watacaala marka dadka geeriyooday ayuu waxaa inooga sheegayaa iyagoo dembi ku dhacay ayagoo dunub ku dhacay ayagoo gaalnimo ku dhacay ayagoo ku dhintay maaragtay iyagoo ilaahay caasay oo aan rumaysanayn allah subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa inuu qofka kaafirka naarta markuu galo xataa muslimku waa lamid baa la leeyahay haddii uu dembi u naarta ku geli kara mootee wuxuu leeyahay rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fiima tarakt wuxuu odhanayaa ilaahayow adduunkii ii celi aan maaragtay sameeyo camal saalixa wixii aan kasoo tegay allah subxaanahu watacaala wuxuu ugu jawaabayaa kallaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha waxaas waa kelimad iyo weer iyo oraha aad tiri oo aad iska tiri baa la odhanayaa hadalkii badnaayoo ku hadlay waxaa layihi kallaa inaha kalima middani waa kelimad baa layidhi aada iska tiri wa min waraa'ihim barzakh ilaa yowma yubcathuun adiga iyo adduunyadiina waxaa idin dhexeeya barzakh iyo qabri baad ku jirtaa qabrigana waxaad ku jiri doontaa ilaa yowma yubcathuun ilaa qiyaamada maalinka lagu soo bixiyo bal fiiri ilaa qiyaamada lagu soo bixiyo ayaad ku jiraysaa qabrigu muxuu yahay qabriga nabigu sala allahu alayhi wasalam xadiis buu ku tilmaamaya xadiiskaasi laakiin inkasta uu daciif yahay laakiin macnihiis waa saxiix والنبي يقول لي القبر حرفة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة وقبر وما ركتي قد كنار تكمدة أما هو بيرها نار تكمدة والنبي يقول لي صلى الله عليه وسلم هذا عمرك واحد وقعت هل كاسد قلي دونتها وح أبتلس أمجري دونه إن أديره وح إسي مجره صاحبه ويعاوي مجره أركوليشن يقبول دارنا يا مجره بيلا عبيا مجران الله سبحانه وتعالى إن هالكاس أيوك وقعين قابية مركا محاد إيدونه كدن بيه مركا دنبنا قيامة دي بعد عيسى أيانا عذاب كلا كسويس قيامة لفتقى دي وعذاب مركا قيامة دي عدنا إتكوسو قرمري يسمى جردو الله سبحانه وتعالى وحليه هي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون مركي لا أفوفه صور كيو قيامة الله إمادو فلا أنساب بينهم يومئذ مالك إسوين نصب شيئا أنا هبلو أدركابا يدلي هبل أديك هبريرتي ما كل شيء ولا شيء باتهي ما أنت إيه اللي ماشي مطالو وإحنا سبي أبتلي سمجرو
ولا يتساءلون ليسكو يديسن ما هي واحد مسلمين أما حتى بني آدم نمده حتى قالوا ممر بك أبارنا ولا إنه قل متى صمان بني آدم نم هناك حتى هنا هدو قال قريب هيسا أنو قل من دين توي قبطه هدون أنت قال كدير يحرب يوسنهين وبني آدم والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابته وحيرا رسول الله إننا للبهائم أجر رسولك إلهي وبهيمة هذا وحسين أجر ميانك إلينا بدل بهيمة وحالينا هذا وحان هذا اللي يقان كهاد لما لهن علمه هذا اللي يقان حويان كوي بهيمة وحويان وقاردا ماركت وحويان أريق جيل الله ورابها اسكدر هذا دايرك كدر وحلوقضا يقان كهاد لنا الله لكن ولا وي كوا هذا وحيدا حتى كتيره كوا هذا وحسينه أجر مكيرينا بيدهم النبي صلى الله عليه وسلم وحيري وحكستا أو بير قيان له أجر بعد كيريزن وحدات سيسمير قالكم مرك حشموا بلي بني آدم كون يقول رجل الصماهن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا الله سبحانه وتعالى ابن آدم كحولي وانكرميني وحنكو إرزاقني وحول ونكسن خلق أنا خلق أبورنا إن بدن أو كم بدن وان كفضلني بليه مرك أنت سبين آدم تدين وذا كرامة وكل وذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات عن كل أبتي إنها حديث كجارين وهو مركز لي الله سبحانه وتعالى مالنكاس ولا لما يطلب يلي ليسوق مع بني waxa Soomaalidu ay yaqaaniin hada qofka Soomaaliga oo maanta waa u badanay hadii maanta sheekh masaajigan muxaadara ka jeediyo hada waxa lagu weydiin kale sheekhiyo ahaa hadii qof fiican lacag bixiyo in qofkan lacag bixiyo qof fiican uu yahay bal guleeyay tamala waxaan u maleynayaa waxaan diin inoo maahan ay dhig kala lahayn baan u maleynayaa waxa ay dhiyo kala marihin waxa weeyaan waa in qabiil isweydiiyo marka wax wanaagsan maahan qofka waxa la rabaa muslimka ah inaad u jeclaato ilaahay dartiis haduu wanaagsan yahay haduu xun yahay ilaahay dartiis uga tag oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay inna awfaqa ura al-iiman al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah iimaanka tiirarku ku taagan yahay waxa ugu adag buu yiri qofka ilaahay dartiis iyo wanaagiisa ku jeclow haduu xun yahayna xumaantiisa kuna waa intaas weeyaan muhiimad maalinka qiyaamaha marka waxa la isweydiisan mahayo oo wax isiin ma taalo oo qof maartay bini aadantinimo ku caawinaya ma jiro qof kale oo wax ku tarayana ma jiro Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku tilmaamayaa markii dadku ay qiyaamada imaadaan qiyaamada waa la imaaday maxaa la sugayaa qof waliba wuxuu sugayaa kitaabkiisa kitaabka yaa qoray qofka qoray ma garan kartaan ee sheegaya هذا هي يا وحكا قر قف ولوما أي ملائكة سمان ملائكة وحكا قرطة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وحدوش نجوكتو الله سبحانه وتعالى ليه هي ملائكة مارك حافظين واحد سمين إنسان إذن كاتبين أو ونكسن كواسة وحنا قبرية قيامة مركز الإمام الله سبحانه وتعالى وحليه